kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada telefishinka Puntland studio-hiisa London oo aanu idinkaga soo gudbinayno barnaamij gaar ah oo ku saabsan munaasabad lagu soo dhaweynayay gudoomiyaha dalada ururada qurba joogta Puntland ee Yurub Maxamed Cabdulle Faarax iyo gudoomiye ku-xigeenka daladaas ayaan Sheekh Xasan oo ka dhacday magaalada Birmingham ee dalkani UK dalada ururada qurba joogta Puntland ee Yurub oo bishii September ee sanadkan 2015 lagu aasaasay wadanka Finland magaaladiisa Helsinki oo ilaa iyo haatan ay ku midoobeen ama ay ku midaysan yihiin 20 urur waxaa isku soo dubiriday xafladaas xubno ka mid ah jaaliyada Puntland ee Birmingham oo ay ka mid ahaayeen Qaali Nurdirir oo ka mid ahay dadkii wax ka soo qaban qaabiyay waxayna halkaas ka soo qaybgalayaashii iyo martidiiba ay ka soo jeediyeen hadaladii kaga aadanaa sidoo kalena madaxda dalada ayaa waxay ka warbixiyeen ujeedada iyo himilada ay hiigsanayso daladu waxayna u dhacday xafladii sida tan waxaynu caawa halkan ku soo dhaweynaynaa gudoomiyaha dalada qurba joogta Puntland ee Yurub ururada qurba joogta Puntland ee Yurub Maxamed Cabdulle injineer Maxamed Cabdulle oo inoo ka yimid runtii Ireland oo isagoo hadda meeshu degan yahay sidoo kale waxaa ka soo qayb galay xafladan dad badan oo mas'uuliyiin ah marti sharafa meelo kala duwan ka kala yimid runtii aynu garanayno dhamaantood waxaan idin leenahay idinka iyo intii ka soo qayb gashayba soo dhawaada idin leenahay mar labaad iyo mar saddexaadba waftigana aad baan ugu mahad celinaynaa runtii waxaan idin leenahay ku soo dhawaada madashan ama kulankan runtii waa arrin aad u farxad leh inaynu kulankan isugu nimaano oo ah kulankii ugu horeeyay oo noociisa kala ah oo lagu qabto magaalada Birmingham ee caasimadda labaad ee wadankan UK aynu ku noolahay marka waxaan leenahay soo dhawaada dhamaantiin waxa inoo bilaabanaya shirkeeni ama kulankeeni waxaan hadda ku furi doonaa sidii dhaqanka iyo caadada inoo ahayd inaynu kalimaad diini ah iyo soo dhaweyn waxaana ku soo dhaweynaynaa Sheekh Maxamed Cabdulle Abu Hurayra soo dhaw alxamdulillahi rabbil caalamiin ثم صلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المتقين وبعد هرتا لنا قرآنك عبد الرحمن با كقرنا ولمدينة واتشوكتا مركا نقو حنكو بلا وياون إن إرادة الله سبحانه وتعالى با مهد إليه الكالسكاله مرتدى الشرفت له نوغتي مقالة لندن إنجنير محمد عبد الله محمد آدم تيرا لمانتي مواد السلام عليكم ورحمة الله تعالى بايد لنا هاي dhammaan maamooyinka gabdhaha Puntland ee dhalinyarada idinkana way soo dhaweynayna insha Allah waxaan Allah subhanahu wa ta'ala ka filaynaa inuu noo noqdo madashan madan khayraysan Allah subhanahu wa ta'ala naga raaliyahay dhamaanteenba wassalaamu alaykum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh waan hadda ku soo dhaweynayaa marka Qaali Nurdirir oo iyadu ahayd dadkii laf dhabarta u ahaa barnaamijka inuu qabsoomo waa in salaamaya dhamaantiinba waftiga sharafta leh oo caaw martida noo ah oo hogaaminayo gudoomiyaha dalada qurba joogta reer Puntland ururada reer Puntland sorry waa la isku qaldaa marka magaceedu markii la soo gaabsho Bayden marka gudoomiyaha iyo waftigiisa waxaan leeyahay soo dhawaada Birmingham ku soo dhawaada halkan waxaa fadhiya jaaliyada reer Birmingham inkastoo jaaliyada kale ay nala joogaan oo Leicester iyo London bay nala joogaan waa leen soo dhaweynayaa dhamaanteen West Midland iyo Midland oo dhan waxay leedahay welcome marka inta ka baxo soo dhaweynta waxaan u mahadnaqayaa dhammaan dadkii shirkan soo qaban qaabiyo ila shaqeeyay oo si fiican jaaliyada reer Puntland oo si fiican ila shaqeeyay ayagana waxaan leeyahay mahadsanidin soo dhawaada wiilasha tiifiyada qolada saxaafadda waxaan leeyahay ayagana waa salaamiin soo dhawaada
walaalayaal barnaamijkan waxaan u qabanay caaway waxa weeye uwalqalid inaan u walqallo ururka dalada ururada reer Puntland oo ku dhalatay magaalada wadanka Finland Helsinki annaga waxaan leeyahay xagga ay ku dhalatay annagana waxaan leenahay waa u walqalaynaa walqalkii weeye marka waxaan ku celinayaa runtii dhalinyarada reer Finland oo ku daysha midan oo wax fiican sameeyay runtii aad baan ugu mahadnaqayaa say barnaamijka u soo mataqaanaa ay barnaamijka u sameeyeen ku dayshay mudan yihiin waa 20 urur baa halka ku madowday soo annagana waxaan leenahay aad baad u mahadsantihiin soo dhawaada insha Allah shirkan waa furan yahay waxaan ku talagalay shirka inaan furo shirku waa furan yahay soo dhawaada insha Allah bootaan baan ku soo dhaweynayaa oo ah gudoomiyaha jaaliyadda Birmingham ee UK aan idin saxo ama walaalahay aan saxo anuu gudoomiyaha jaaliyadda Birmingham ma ahi ee waxaan ahay odayaasha oday kamid ah marka waxaan ku hadlayaa afka jaaliyadda Birmingham ee wadanka Ingiriiska aanu ku soo dhaweynayno gudoomiyaha jaaliyadaha Puntland ee Europe Maxamed Cabdulle iyo marti sharafta kale dadka kale oo inooga yimid magaalooyinka ururada kaleeto akhyaarta haweenka aqoon-yahanada iyo dhammaantiin waxaan leeyahay soo dhawaada waadna mahadsantihiin si aad noogu sharafteen inaad noogu timaadaan sida loo bixiyay ama loogu yeeray wanqasha ururka bedan ee magaalada Birmingham Soomaalidu waxay tiraahdaa hadal nin badiyayna ma wada oran nin yareeyana kama wada tagin waxaan hadalkayga ku soo koobayaa 2 mas'alo ama hal mas'alo oo gaaban waxaynu kulligan wada garanaynaa qiimaha ay hooyadu leedahay wadankuna waa hooyadeen waa meeshaynu kulligan ka wada nimid marka haddii ay sidaa tahay hooyadu xaqii ay lahayd aynu wada siino haddii inteena badani aynaan taa garanayn dadka u istaagay inay hawsha wax ka qabtaan aynu la qabanno waadna mahadsantihiin baarakumullah saaro waxaan leenahay marna waxay ka mid ahayd dadkiina matalayay oo UK ka tagay marna waxay ka mid ahayd dadkiina matalayay oo reer Midland ka tagay marka haddana waxay ka mid tahay dadka ka soo noqday oo halkaan noogu yimid waxaan leenahay saare soo dhawow kelmadda caawa halkaan aad ka soo jeedinaysid waxaan marka hore soo dhaweynayaa madaxdan sharafta leh uu ka mid yahay bootaan oo maanta noo matalaya UK oo dhan caawa isaga maxaa la Midland oo dhan isaga noo fadhiya gudoomiyaha oo uusan idinku cusbeen hadda wax badan la idin sharxay xildhibaan oo ah Soomaali u hadla u socda meel kasta oo Soomaali ah oo wanaag ka socdaba taageera Helsinki waa nala joogay caawan waad u jeedaan waxa weeye danaha Soomaalida qofka mar walba u socda soo dhaweyn gaar ah ayuu nagu leeyahay waan u mahad celinayaa suxufigeena weyn rugcadaaga ah oo wax badan hadda ka bedelay xagga saxaafadana aad dareemi kartaan teera oo asaguna dadkii dhalashadaas ka qayb galay xagga tiknikada dhinaca walbaba waxa nala joogta sidoo hawal idin sheegay muxubbo oo kamid ahayd uradii yimid gudoomiye ku xigeenkii oo soo socda oo ah gabar gudoomiyaha waxa lagu xijiyay gabar baa lagu xijiyay ha u maleyn inaan madaxnimada qaadanayne shaqada un baan hoos ka wadaynaa meelaha shirka asaga tagaya diintu waxay noo ogoleen marna kuma dhaqaaqayno taasna ogaada shaqadii hoosaanu qabanayna hadii Ilaahay yiraahdo runtii anigu waxaan ahaa goob joogayaashii meesha shirka ka qayb galay anu urur ma wadanin waxaan ahaa shakhsiyaadkii lagu cazumay oo lagu sharfay baan kamid ahaa runtii waana meel aad noo soo maxaa la yiraahdaa wax badan naga soo bedeshay waxaana aan u maleynaya anu shakhsiyan in ifafaalihii Soomaalinimada ay soo carfayso xaqiiqiyan markaan u hadalno oo ah haddii ay isku duubnidu ay bilaamato
waxaan aaminsanahay shaqo kasta horta dad baa bilaaba gudoomiyaha waa ururo isu tagay ma aha jaaliyada isu tagay waa ururo isu tagay markay ummaddu isu tagto oo ay waxqabad u dhaqaaqdana innaga waxayna loo kaga baahanyahay garabgal anoo marqaansan baan Birmingham ku soo dhaxdhacay runtii diyaaradda aan ka soo degay maahane dhinacyadeeda ma fiirinin qaali iyo dadkaas ayaan ku hufay wixii meesha ka jiray dabadeedna baadi goob bay ku dhaqaaqeen ilaa ay iyaduna aragtay wixii meesha ka jiray dadku arkeen waxaana aad ugu faraxsanahay in ay maanta Birmingham ay u dhan tahay isla markaasna iyadu u wanqashay waa wax lagu farxo xaqiiqiga oo lagu macnaha oo ah horumar weyn waaye mideeda kalena ummaddu nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri macnaha waad ogtiin khalqullaahi ugu khayrka badnaa wuxuu yiri daar dhisan yaan meel daloosho anigu aan buuxshay waxaad garan kartaa fiiri wuxuuna yimi waqtigu yimid iyadoo gabdhihii la aasiyo yimi wuxuu saa u leeyahay nabiyadii kale oo waxa soo shaqadaas dhan soo qabtay ayuu wuxuu doonay inuu proof garay inay xataa wax qabteen marka wax walba oo la qabto meel un bay gaaraysaa ummaduna waxa weeyaan qolaa wax qaban waa la sii wan dawladnimada saasay ku dhismataa wax kasta oo aasaasana saasay ku dhismataa waxaan rajaynayaa anoo runtii qeyradiina ay hayso igana raali ahaada waxaan rajaynayaa in ururada haddii ay midoobaan caruuraheena bay wax u tahay waxay wax u tahay mustaqbalka yeynaan ku xisaabtamin inaga kaliyeena isku xisaabtamin waa inaan ugu xisaabtano dadkeena caruurteena waxaynu uga tagno masaajidada haddaynan soo saarin dad diintii dhalinyarada aynaan soo saarin bari markaa dhimano way haawanayaan waa inay dad jiraan ururadu waa sidoo kale macnaha inay jirto wax diinteena cirdigeena sharafteena soomaalinimadeena difaacaya mar walbaba ha yaraato ha weynaato waa inaynu garab galnaa waana mahadsan waxaan hadda u yeerayaa ninka la yiraahdo Cabdicasiis Xildhibaan Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan jecelahay marka hore inaan ilaahayna abuurtay idinkaga baryo inuu dhammaantiin salaan iyo nabadgelyo dushiina yeelo anigu waxaan ka mid ahaa sida la sheegay dadkii marqaatiyaha ka ahaa wixii ka dhacay magaalada Helsinki ee dalka Finland waxayna caawa runtii ii tahay sharaf inaan halkan idinla joogo idinkala qayb galo munaasabadan ama xafladan aad ku soo dhaweynaysaan gudoomiyaha talada ururada Puntland ee Soomaaliya His Excellency Maxamed Cabdulle Soomaalidu waxay tiraahdaa madal na marqaati waa maanta oo kale caawa waxaad kulligiin ka marqaati kacaysaan in munaasabad ay magaaladiina ka dhacday Birmingham oo loogu waqlalayo muxuu ahaa taladan masjidna dhagax baa lagu darsadaa marka la dhisaayo sidaasay Soomaalidu tiraahdaa haddaba anigu waxaan goobjoog ka ahaa xafladii qiimaha badnayd ee muddada 3 maalmood ka socotay magaalada Helsinki ee dalka Finland lagu doortay guddigan uu gudoomiyaha u yahay Maxamed Cabdulle waxaa dhici karta dadku inay malaha isdhahaan anigu waxaan rabaa maadaama aanan kamid ahayn ururadii ka qayb galay laakiin shakhsiyaadkii lagu casuumay oo ka qayb galay wixii aan marqaatiga ka ahaa inaad ii dulqaadataan 2 daqiiqadood inaan ku sheego waxaan marqaatiye ka ahay waxa isu tagay waxay ahaayeen ururo gacantaydan waxaad garan kartaan 5 farood ka kooban marka ay gacantaydu fartaa iyadoo ka maqan tahay biyuhu uma qaban karto sida marka ay 5 yihiin ay u qaban karto waxay dadka dhalasho ahaan Puntland ka soo jeeda garteen ruux kasta ururkiisii waa ku jira cid ka saaraysa ma jirto ururkii degmadii uu ka shaqeynayay gobolkii uu ka shaqeynayay dadkii uu shaqeynayay shaqadoodii buu wadaya laakiin waxa lagu heshiiyay wax guud oo la wada leeyahay oo la wada ilaaliyo oo xoog hadda kali aad u leedihiin marka la isu geeyo xoog badan buu noqonaya ujeedada loo dhisay daladan uu gudoomiyaha ka yahay gudoomiye Maxamed Cabdulle waa sidaas annaguna aan marqaatiye naloo ka dhigay maalintii aan halkaas joognay caawana maadaama aan dadka Ingiriiska wax ka degan ku jiro waxa ii ahayd inaan magaalada London maanta uga soo safro waa jeclaan lahaa dad intan ka badan oo Puntland ka soo jeeda dadka lala hadlaya maadaama ay iyagu yihiin caawa magaaladiina inay ka soo baxaan inay yimaadaan dhageystaan guddigii yacni loo doortay in hawl guud oo wadaag ah dadka ay u qabtaan oo ah hadday waxbarasho tahay hadday caafimaad tahay hadday dib u dhis tahay wixii uun dagaaladaas sokeeyay ee Soomaaliya ka socday ku burburay ama wax cusub oo
dadkii muxuu ahaa wax loogu qabanayo ha joogeen gudaha Soomaaliya ha joogeen adduunka intiisa kale intaasaan anagu idinkaga marqaati kacaynaa oo aan goobjoog ka ahayn guddigii la doortay oo Maxamed Cabdulle gudoomiye u yahay 7 xubnood ka kooban oo gabar gudoomiye ku xigeen oo hadda aan iyadoo halkan joogin laakiin soo socota sida la ii sheegay in iman doonta sharaf gaar ah bay noo tahay caawa dadkan magaalooyinka kala duwan ee Leicester Birmingham London Ireland iyo adduunka intiisa kale ka yimid inay halkan nagu casuumaan annaguna waxaan idin leenahay waa mahadsantihiin Soomaalidu waxay tiraahdaa waxaan badan tahay xumahaba waa isugu tagnaa waa idin la dardaarmaya hadalkayga waxaan uga harayaa xumahaba waa isugu tagnaa maanta marka aan magaalo ka sheekaynayno Soomaaliya ku jirta xumaha waa isugu helinaa wanaaga inaad isugu helisaan waxaan u yeerayaa oo kale maxamed xirsi teera bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu horta dadkii qabanqaabiyey munaasabadan waa u mahadnaqayaa aad bay u mahadsan yihiin intii gacanta ka siisay intii qabanqaabisa haddaanse idinla kaftamo oo aan idhaahdo qof kasta oo idinka idinka mid oo halka fadhida inteenna fadhida hadduu isweydiiyo sababta meeshaan u yimi caawa muxuu isagu jawaabi lahaa isagoo aan aniga ii jawaabin isagoo qalbigiisa u jawaab ma wuxuu odhan lahaa waxaan u imid meesha inaan ogaado waxa ka jira saan uga sheekeeyo ma waxaan u imid hadaf baan lahaa oo wax wanaagsan baa la iigu yeero aan u imid qof walba bal isweydii aniga marka tayada idiin sheegaya marka anoo London jooga ayaa Finland layga marti qaaday oo waxay marti qaaday dad aan wax yaraqiinay maalmo dayuurad baan u raacay Finland baan tagay intaan sii socdana sida aan filayo in badan oo idinka ka mid ah caawa inay isweydiinayaan anoo su'aalo badan isweydiinayaan Finland tagay maxaa dhici doona maxaa la samayn doona maxaa la oran doona maxaa wax fiican baa anoo isweydiinay laakiin anoo qanacsan baan soo noqday waxaan rajaynayaa idinkoo qanacsanana meesha ka tagtaan taasi waa mid laakiin laba su'aalood baa igu soo noqday intaan meesha joogay iyo intii aan soo noqdaba wariyaa tahay maxaa ku geeyey meesha dad baa i weydiiyey dadna waxay yidhaahdeen ururkan warkiisa maxaa TV-ga Puntland looga sii daayay labadaba waan u jawaabay qolada tiri wariyaa tahay maxaa meesha ku geeyey waxaan idhi wariyaashii u diiday meesha khayr ku jira inay tagaan waxaan kaloo ku yiri waxay ilowsan yihiin baa jiray wariyuu waxa weeye kala rabo dadka inuu ugu dhawaado had iyo goor dadka u dhowya isla markaana ay tahay inuu wax kasta ogaado waxay yihiin xaqiiqdeed qodob kalena waa uga jawaab waxaan idhi kuwa ay leeyihiin TV-ga maxaa warkooda looga sii daayay soo ma oga muwaadiniin Puntland inay yihiin TV-gana Puntland leedahay intaa kadib waxa ii soo baxday xogaa haddaan hadalka isku dheeray raalli hada intaa ka bacdi waxa ii soo baxday su'aalaha Soomaalidu waxay ka jawaabi weyday Soomaaliya oo dhan waxay ka jawaabi weyday su'aasha ah inay wada jir si guud nabad ugu wada noolaato maxaa u diiday Soomaaliya oo dhan waxay ka jawaabi weyday su'aasha maxaa ka hortaagan inay guud ahaan nabad u wada noolaato aqal xumaa ka hortaagan waxaan marka ka digayaa aqal xumadii kale inay nagu dhicin كو waxay qanciyay marka maxay qanciyay marka hadaan Finland tagay wali idima sheegay wixii qanciyay waxay qanciyay wixii la sheegay maxay ahayd laba nin oo dhalinyaro ah oo dadka shirka qabanqaabiye ayaa shir Yurub ka dhacay tagay iyagoo aan soogeen labada urur kale ajnabi marti qaaday markay meeshii yimaadeen waxay isweydiiyeen way salaameen labadii wariyaha ku marti qaaday markaa Soomaaliya labadii Puntland may noqdeen heer Yurub baa lagu marti qaaday waxa ku dhalatay intii dad ajnabi iskeen bari lahaa war inagu baynu isbaranno sababtii shirka in la qabqaabo inta hadba gaal isugu keen leed baynu inagu isdoonano sababtii horta shirka Finland sababta u noqoto la ii sheegay oo qancisay taasa kamid koow maxaa kale oo qanciyay waxay qanciyay ururada midoobaya waxay doonayeen wiilashu waxay ka shaqeeyeen midnimo ah voluntary aan khasab ahayn waana la khasbay nin walba raallinimadiisa qodobka labaad ee qanciyay qodobka saddexaad ee qanciyay waxa weeye ururada isu imaanayo midnimada samaysanaya
urur magaciisa la cunayo oo la tirtiraya ma jira urur waa jiraya magaciisina waa lahaanaya wuxuu qaban jirana waa qabanaya maxaa kaloo qanciyay waxa weey inta adoo leh ayaad waxaad helaysaa wax dheeriya oo waxa hadda haysay ka badan oo dalad ka weyn oo Yurub iyo wax lagaaga doonayo horta wixii qanciyay intaas ahayd iyo kuwa kale laga sii haddaan ka sii daba tuuro waqtiga diideen ay kaga ciyaareen waxa la yiraahdaa marka waxa weeye talo waa mid aad gaari weydid iyo mid aad garan weydid yeeydu ku dhicin inaad garan weydaan talada dhalinyaradaas waxaan qabaa aniga taladii inay garteen ee ay garan waayeen oo ilaahay caqli ah u gartaan siiyay waxaan kaloo qabaa inay gaareen sababtu waxa weeye caawa 20 urur baa ku midaysan taladoodii kuwa badan oo kalena waxaan rajaynayaa inay ku soo biiraan waxa weeye marka waxa la yiri Soomaalidu waxay ka been sheegtaa nolosheeda waa culowna bay leeyihiin waa isguursanayaan waa col carruur bay isu dhalayaan waa col lacagta isku darsanayaan waa col heesa jacayl ay qaadayaan waa col intaas col iyo ma heshiiyaan guur iyo heesa jacayl iyo col ma heshiiyaan iyadoo ruuxda aqal xumo ku hoos jirta hadii la isguursanayo col ma jiro hadii heesa jacayl la wada qaadayo col ma jiro hadii xawaaladaha lacagta la isku darsanayo shirkada la wadayo col ma jiro nafta iyo dhaqaalaha ugaada wax la isku aamino Soomaalida way isku aamintaa gabdhihiina way siinayaan naf waa iyo wiilashi xoolina way isku darsadeen waan col waa been waay ko waxay isku dirarayaan haddaan labadeen afarteen qof laba qof aan dirsano meel u dirsano waa culooy ma laba qof wax soo hadal kaliya u socdo hadda caaw meesha cid lacag ka qaadan hadal baa u nib hadalka ku dirarayaan laakiin xoolaha iyo guurku iyo nolosha way isku aaminayaan waxa aragtaa nolosha beenida ka sheegayaan waxay la mid tahay Soomaalidu waxay u naceebtahay waxa jira geel jira u naceebta waxa weeye geeluna waa waxa u jeceshahay waxa jira geeri waxa ku roon geel jira iyo qof aan la aqoon geeluna waa kay lahaayeen aakhirada niman geel lama amaanin soo been sheegmaya soo nolosha been ka sheegmaya waa been bay sheegayaan waxa weeye marka nolosheena yeena been ka sheeg waxa la marka laba nin oo geel jira saddex wiil oo geel jira geel la joogay way dirireen markay dirireen baa waxa dhacday iyagoo dudaya geel la soo xireeyay saacadii waxa la gaaray xiskiisdo geel la maali lah gaaja haysa inay wada shaqeeyaan kama dhaxayso waa col ninkii ugu caqli badnaa baa hadlay marka wuxuu yiri war geelena baa noolisaan gaaja waa cudur baad kaysta way gaaja haysa maanta waxa loo kala maayis meel cilaana waa jooga war geelena baa noolisaan gaaja waa cudur kii kala hadlay wuxuu yiri ninkii hal u godlaba haatan waa la lisaya kii saddexaad baa hadlay wuxuu yiri wixii la siiyay waa lagu walaaloobi hadda waxa idin leeyahay war geelena baa noolisaan gaaja culus aanu midowno ninkii hal u godlaba halala liso ninkii wax wanaagsan la yimaado fikrad kasta waran ninkii la yiraahdo hal taageero markuu xumaado hal arko laakiin yaan laga horimaan waa mid kale waxa kale oo jira laba gabdhood baa isu faanaan leeyahay laba gabdhood baa isu faanay mid waxay tiri aabahay dhul dilaacay uu talaa way sheekeynaya waqtiga dildilay aabahay dhul dilaacay oo kaabay tii kala soo wada waxay aabahay meesha jooga dhulka ma dilaaco markay hore waa candi caana ka dhiga waxaan leeyahay marka ururka waxaan leeyahay waxaad noqotaan kuwa meeshii jooga aan dhulka ka dilaacin waxaan kaloo leeyahay haddaad aragtaan mid dilaacana kuwii kaba noqda idinkana waxaan idin leeyahay kuwa tala gaari waaya ha noqonin ama garan waaya Soomaalidu waxay tiraahdaa gurigaaga hortiisana ood baa la dhigaa hadalkaagana afeef baa loo dhigaa waxaan idin leeyahay Soomaalidu waxay tiraahdaa reeraan lahayn qawsaar iyo qablana iyo qabaxle ma hanaado ma tanaado maxay yihiin marka qawsaar iyo qablaba iyo qabaxle qawsaar waxa la yiraahdaa wiil xoog badan oo xoog furan oo xoolaha ilaaliya oo daaja oo waraabiya oo meesha u roon hadda geeya waan baa la rabaa ururku wuxuu noqonayaa waa qawsaar wuu idin yahay haddaad garataan qawsaar buu idin noqonayaa
waxaa la yidhahdaa qabaxle qablama waa habar ama qof dumara oo xoolaha kala taqaan oo casarkii marka ariga lasoo xireeyo tawda waridii heblahayd war waxarta ka celiya xoolaha war hal la xiro waxaraha war heblaha maqan waridii xoogaal waay ninka la qabaxlana maxaa waay waa oday reerka gaajaysan wiilkaan waxaysanoo guursanaya gabadha umushay ka warqaba intaasoo dhan baa u baahantiin intaa waxaa idiin leeyahay waxaasoo dhan waxaa idiin leeyahay waxaa weeye waxa idinka maqan baan dareemaya oo aydan garanaynin waa midnimo waxa idinka maqan baan garanaya waxaa weeye is-eheshi waxa idinka maqan baan garanaya waxaa weeye wixii halkaa idin keenay xumaha ahaa inaad ka biskootaan waxa marka ururkan dan baa ku jira waxa anugu ka dhex arkaa waxa hadda looga jeedo wax ka badan sababtu waxa weeye magacii daldal ahaa inuu Yurub gaaro oo abuurmo urur la yiraahdo dalada ururada Yurub ururada Puntland ee Yurub wuxuu horseedi karaa Soomaalida kala dhoon midowda marka waxaad ka baqdaan ma jireen waxa ku dhiirataan baa jira waxa ka baqdaan ma jiro qofkii baqayo waxaad ka baqaysid ma jiro ururkaaga cid xirimayso cid ka qaadimayso magacaaga waa lahaanaysa aniga waxaan ku qarcinaa idin sheegay magacaaga waa lahaanaysa waxa qaban jiray waa qabanaysa cudud baan helaysa odagii wiilashada inta uu yeeray uu u dhiibay oo yiri mid hal loo jeeyay markuu isugu dhiibay la jeeyay way baad noqonaysaa marka ha baqinina khayr baa jira waxaan leeyahay khayrka haddii kale maxaad noqonaysaa waxaa jira marka roobku uu doo oo dabka reeruhu shitaan xasharaad baa ku soo yaaca dabka iftiinka soo raac ku gubta waa tusan gub lahaa baalay dab loo shiday kulka roobku uu doo nuur bay dareentaa dabeed ku gubata saad u cararaysaa urur yar oo bakti oo miskiin ah u cararaysid baadna ku baktiyaysa waxaad noqonaysaa odayga reer baadiyaha oo xoolaha geela dawajo ka gaajisana urur yar oo aan micno lahayn waxba ku tarin maalin lagu siiyo $5,000 ama £5,000 intaad micin mo wax ka badan baa laga ilaahay inuu kaa siiyo ee midnimada aada wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan umaleeyaa kelmad ka miisaan culays ma jirto aan midowno caawa halkaan arrintii waxay isugu tagtay caawa aynu midowno waxaan u yeerayaa cali faarax seeraar oo isagu ku hadlaya ururka SDC magaalada Birmingham waxaan leenahay cali soo dhow waxaan soo dhaweynayaa gudoomiyaha ururada isu tagay sidii hadda Diyaana sheegtay waxa fiican sida anigu maqlay waa ururo isu tagay jaaliyada ururana wax kala duwan marka ururo register oo isu tagay oo isxil qaamay gudoomiyaheeda Maxamed Cabdulle ayaan soo dhaweynayaa waxaan ku leeyahay ku soo dhawow magaalada Birmingham waxaad moodaa inay hadda dhawaatay xilligii Soomaalinimadii iyo unitkii uu imaanayo oo caawa aad ugu faraxsanahay ururo aan anagu garanayna hadda Yurub meelo badan oo ay joogaan mid walba suuteera u sheegayay inuu inta qol yar furtay oo 5,000 ku qaato inay maanta Puntland ba bilowday inta isu tageen ay urur xoog la sameeyeen waa waxay noo bilaabeen runtii annaguna aan ku faraxsanahay oo caawa uga soo qayb galnay aad baan ugu mahad celinayaa gudoomiyaha waa la doortay cid kasto ka shaqaysay kuwa halkaan ka maqan iyo isagaba aad baan ugu mahad celinay waxa hadda u yeerayaa abwaana Diyaana waxaan idinka codsanayaa in aad la shaqaysaan Maxamed Cabdulle Qordheer iyo ururkiisa aad tijaabisaan aydan dadka degdeg lagu ma caarado waa la sugaa qofku markuu wixii wadi waayo inta loo yeeray iyadoo la caayilo la aflagaadayn baa la yiraahdaa waxa kan nin yahow saas ay wax ka yihiin iska hagaaji barakallahu fiik waxaan leeyahay gudoomiyahana codka ururka caleemo qoyan aqli wanaagsan cudud midaysan calool fayoobi bay Birmingham kugu casumayaan ciideena hooyiyo calanko lagu heshiiyo carrada Ingiriiska iyo canab ka soo baxay Birmingham baan kugu casumaynaa maxamed waan ku duceeyay allow ku daah diiwaana fudud iyo allow doorasho aad gashay oo dunida afarteeda gees duub lagaaga xiro durdur xareed iyo allow roobku kugu daa dad iyo duunyo iyo allow deeqsiyaal ku sii oo dunida afarteeda diiwaana fudud iyo allow doorasho aad gashay oo dunida afarteeda gees duub lagaaga xiro
ummad yahay midnimo waxaan rabnaa magaca Soomaala urur yahow mataanaynu nahay meelu wada jeeda xalay baan samirti dhexe ku kacay ololkii mandeeqo waxay tiri madluum baanaha maalmihii tagaye maqalkan Obama u diray magana weydiistay mudnaanta ilaahayd baan la siin sidigta madino maamuliya hoggaan bay leedahay laysna mari waye mas-uuliyo wadani baanu harin loo mashxaradaye malabsiga shisheeyaha mugdiga madharkiyo tugta iyo kuwa maryaha dumar xirtay qaraxa misaya matada ragan laynaye madaxa soo dubtay mindishine ardadii ka baxayo nacasku mineeyay iyo mucjisada dalkii haysatan manka gaalin waayay gayraha dhacayo waxaan maqlaa galowga yeeraya gami waayay laylkii hurdadu galaalab weeyaano go'ashan qalbiga tahaya jirka gudihiise guraygii halgamayo gudoono ingooyi weyday sayidkii cadawaha guban cabasha garsiino legadii goglahay dhigtay wangagabayaye gayigii gumad baa ka dhacay adigadashaye gobaydii aad curisa haraadgeedka kiici weyday gangaha waxa loo xiraa waa gurbood kacaye galadu waxay luminayaan gabanaadeniye go'ayayano gabaraba idin garad dhama jamaykanku waxay gursadaan waa hablihii guudka loo dabaye sugan gabowdiyo runbaan cawa galayayo abwangeeriyoodiyo mirangeeska marayaye qalif gabayadu tiriyay baan soo gudbinayaye garigiyo uga dhimiya Kenya uga guray gorayadiya cawshi miyan weynay gabigoodba geesigan jeclaabay diilaan goodirkan rabaye taariikhda waxay noo gasheen guldariyo ceebe gogoldhiga Puntland oo casuma gabiba Soomaali walaalahan isgoyana heshiis durugsan garsiya garcada we adigoonu naqin nabad guddoonsiya gacmaha isu saaro la tali gacalka eedoobay garcada we adigoonu naqin nabad guddoonsiya oo gogol wacaan intaad wada dhigtaan gooba qarankeena hadalkaas wuxuu u dhacayaa maxamed iyo ururadiisa waxaana uga baxayaa maxamed oo deeqda ee boodalaalima ducooyin hagaagsan oo ilaah dib dhigin durdur xareed iyo ubaxan dabayli marin uduga lagu doogsanayo indhuhu dayaan daayin ha kugu beego qayraan mar raba dib dhicine daalacyadan tiriya amaantaada danabka iyo dunjiga aad tahay iyo intaan reera adag u dago haddaan dadku yaaban gabay way iska daynaya gudoomiye ku-xigeenka dalladda ururada qurba joogta Puntland ee Yurub oo iyadu ah reer UK marka laba darajo isku haysataa marna waa gudoomiye ku-xigeenka dalladda dalladan aynu caaw halkan isugu nimid oo ina midaysay marna waa xubin ina ku matalaysay shirki ka dhacay Helsinki ee wadanka Finland oo reer UK uga qayb gashay ayaan xasan waxaan leenahay soo dhawow ayaan waxayna ku soo dhaweynaysaa gudoomiyaha ayaan baa ku soo dhaweyn doonta insha Allah taala waxaan insha Allah markaas dhageysan doonaa khudbadii aynu caaw halkan isugu nimid soo dhawow ururada Baden baan ka mid nahay aniga waxaan gudoomiye ku-xigeenka haddana u jooga qaybta samafalka marka waxaan mahad ballaaran siinayaa gabdhihii xafladan soo qaban qaabiyay ee quruxda badan jaaliyada Leicester walaasheen Zaara Xubeero halkaan nooga timaaday iyo gruubkeeda iyo walaasheen qaali iyo gabdhihii la soo qaban qaabiyay iyo wiilashiiba aad baan horta uga celinayaa special thanks idin leeyahay
kolley guddoomiyaha idiin sheegi doonaa dalladan waxay macnaheeda ay tahay aniga waxaan rabaa inaan kusoo dhaweeyo idinkana aan idin dhaho aad baa u mahadsantihiin kasoo qaybgalkiina waana mahadsantihiin waxaan ugu hormarayaa mahad aan la soo koobi karin oo aan u celinahayo walaalihii soo qabanqaabiyey xafladan kulligood si wada jira magacyada dadka ma wada aqaan marka waxba intaa hoos uga degmahayo dhammaantiin aad baan idinkaga mahad celinayaa waa wax mataqaanaa runtii taahiir ugu reebaya weeye sidoo kale waxaan u mahad celinayaa banalka walaalaha ila fadhiya dhammaantood waxa weeye adinka iga badiya waxa ay yihiin laakiin sabab bay u fadhiyaan meesha waxaan u malaynayaa inaad qiraysaan laftigiinu mujtamaca dhexdiisa inay yihiin dad qiimo ku leh wixii ay ka marti kacaanna dad aad uga barateenna ma ahan inay marar badan waxyaalo badan inay mataqaanaa ay siiyaan approval si sahla ama ay ka markhaati kacaan waxyaalo aysan hubin aad baan uga mahad celinayaa inay maanta halkaan ay mar labaad noogu yimaadeen ayagoo wax interest iyo gooniya aan ku lahayn midkoodna urur ma matalo midkoodna wax gooniya ka helaya lama arko midkoodna waan hubaa kitaabna waan ku mari karaa inuusan wax uusan shakhsi horena inuusan uga helin haddana aanan filaynin wax gooni ah annaguna aanna usoo wadin taas intaasaan haddaan uga gudbo dalladan ama fikraddaanu say kusoo bilaabatay waana laga dhawaajiyey haddaan dul maro baahi bay ka dhalatay wax aan la filaynin si sudfaa ku dhalatay labo qof oo isugu yimid shir caalami ah laba urur ka kala socday laba dal oo kala duwan ka kala socday soomaalinimadii markii hore isku bidhaansaday kadibna markay hoos u wareysteen ay by chance dhacday inay noqdeen labadoodiiba reer Puntland kadibna fikradda isweydiiyey dallad shisheeye ayaana midaysay waanu u baahannahay ma suuragal ahayn inaan anagu mid aanu leenahay aanu samaysano marka halkaasay ka bilaabatay anigu ka mid ma aan ahayn dadkii fikradda keenay wax badanoo horena mataqaanaa kuma aanan darsan dadkii ka soo shaqeeyey inta badan meesha markii la isugu yimid 12 urur 10 dal oo Yurub ah iyo 17 urur oo ka socday dalalkaas waayo dalalka qaar baa laba urur ka socdeen iyo wax ka badan ayay dhex dhigeen mataqaanaa fikradii dadkii halka isugu yimid ayaa ka dooday wax istusay wax isku diiday wax iska saxay kadibna wixii soo baxay ayaa mataqaanaa loo codeeyey anigayna soo raacday oo aan ka mid ahayn dadkii fikradda mataqaanaa lahaa asalkeeda dadkii fikradda asalkeeda lahaa hadda xataa boordiga kuma jiraan midkoodna kuma jiro waxay u tahay daliil mataqaanaa in aysan mataqaanaa laftigooda wax interest iyo gooni aysan kala hayn inay yihiin dad khibrad u lahaa dallada kale oo shisheeye awalba gaashaan buursan jiray hubo arkayna mid ayuka ay leeyihiin haddii ay helaan inay uga caano badan tahay fikraddu waa saas waan soo koobaya hadalka meeshii maxaa ka soo baxay marka waxaa ka soo baxay meeshii magacaan waxaan umaleeyaa asagoo Soomaaliya meel buu uga qornaa waa kana Soomaaligiisu sida saxda waa dallada ururada qurbo joogta Puntland ee qaaradda Yurub wax jaariyada kuma aragtaan jaaliyaduhu wax la taaban karaba mararka qaarkood ma ahan anagu waxaan u aragnaa wax mubham ah oo mataqaanaa samada duulduulahaya oo way jiraan ururo magaca jaariyada wata anaga way nagu jiraan laakiin gudihiisa waa urur wuxuu leeyahay mataqaanaa organizational number structure guduhu leeyahay dastuur buu leeyahay waxa soo dhan waxa ka soo baxay marka dalladan lagu midaysan yahay meesha ka soo baxay dalladii marka maxay u taagan tahay walaalo waxay ka dhawaajiyeen qaarkood mataqaanaa in ay unity reer Puntland hadda ay tahay laakiin looga socdo mid Soomaaliyeed waxaan malaynayaa shirkaygii gunaanadkiisa bayaanka aan ka soo saarnay qaarkiin hadduu akhriyay qodobada 6 qodob aan ka soo saarnay mid kamid ah wuxuu ahaa yeerid aan ugu yeerayno walaalahayga Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan inay sameystaan dallada midaan la mid ah qaaradda Yurub ay ka sameystaan iyo qaaradaha kaleba hadafku waxa weeye waa walaalahayo wixii mataqaanaa annagu aan ka faa'iidnay inaanu dadka la wadaagno ayaanu rabnaa annagu fikraddan dad ajaaniba baanu aragnay sida ay mataqaanaa ay uga faa'iideen annagii baana ka soo qaadanay
ومد اللباد إن مركزتو وحددوا جروب كمذا أما قيب كمذا الصومالية أي سوتكتو فائدهم باكو جرته وحددي جود بيسون وينيسا أيوة منطقة عنا استقي جود reer Puntland hadday tan intooda badani mataqaan anu aaminsan boqolkiiba boqol inay noqonayo waayo dabeecadda ama mataqaan sunnatul hayat baa masaas ahaynba in boqolkiiba boqol hal meel la soo raaco waana fine waxa weeye laakiin hadii Puntland ay ka soo baxda dalad weyn oo ay ku midaysan yihiin oo regionada kale ee Soomaaliya hadda ay u qaybsan tahayna ay intoo kala sameeyaan 3 ama 4 daladood aan isugu soo harno أنا وحوي هدف كيجو إن أنا هالك كويس تاجنا أنو صدق هذا أنفر تعمل ذينه أو سوماليا هل ضلت أي سويت معده مش أشكر الأسودين كانوا وحوي مثلا محي وحي تاي ورفضوا محي إذا كفى إذا يعني ضلت بعد استان قرب بعد كسر بيري حبين بقاتي ذن وات محوك كفى إذا يعني وحنا من يا ويكهلن ولا هذا كقاركيس horta kow ururku sidiisii buu jiray dalkii uu ka shaqeynaya kooskii uu markii horeba qaatay iyo sidiisii uga shaqeynaya anagu waxa taa ka bedelimayno shaqadiisa waxba faragashan mayno mataqaana structure-kiisa gudaha faragashan mayno waxaan ku caawinaynaa waxa weeye waa waxaan kow haddii uu مثلا Birmingham ka dhisan yahay oo ilaa iyo UK uu ka shaqeyn jiray waxaan u saaraynaa inuu dhaafo UK inuu dal kasta oo Europe tago إنه بروسل استجوا إنه منطقة عاد كوياش وامد وحن كلو كسر عادي كرنا كوسك والسوق قاطع أما أرنت قدية ده وربا إنه كاميرا دليو إنا أيسن كليس وسن كنا قنة مرة كارك واحد شرا ورفرا منطقة أكتيفيست يالو منطقة أيوة أن نقالة يترني وحبهن لكن وحبي الضوضان صباح ورفرا واحد شرا شغل ثاني وحد ضوضان doodaas urur kaliya marka u doodaysid hadaa daladaana kala ka mid tahay waxaad awoodaa inaad ku qanciso in xubnaha dalada kuula jira kulligood xil isku mar inay u doodaan arintaas waxayna sahlaysaa in meel kasta oo mataqaana Yuruba level walba ay sahal ku gaadho baarlamaanka Yurub in la horgeeyo ayaa sahlanaanaysa mataqaana soo jeedin ururkaaga uu soo jeediyay ama kaygu soo jeediyay adigoo daladan isticmaalaya waxaad kaloo ka faa'iideysaa inaad wada shaqeyn xiriireed iyo khibrad isdhaafsi inaad ka hesho ururo ka khibrad badan shakhsiyaad ka khibrad badan leh ka aqoon badan ka mataqaana taariikh dheer inaad shaqo wadaag noqotaan waxaad ka faa'iideysaa in haddii aad mataqaana aad dalbato mataqaana fan ama gacan qabasho aad ka dalbato dawladda aad joogto ama European level kaba adoo kaligaaya waan ognahay recession baa dhawaan dhacay oo wadamadan way adag tahay adoo kaligaaya in mataqaana lagu aamino laakiin marka aad ku tiirsan tahay 20 urur oo mataqaana credit-koodu kala duwan yahay sumcaddoodu kala duwan tahay in lagu aamino codsigaagiina lagu fuliyo chance-ku aad buu uga badan yahay waxaan soo aragnay waa wax jira weey waxaan kaloo aad ka faa'iideysaa in mataqaana aad ka hesho waan ognahay ragga organizationada ka shaqeeyahay waxaan hubaa inay ugu qirayaan waxay dhahaan networkingku waa the essence waa wax ugu muhiimsan organization ma ka shaqeynayaan networking mataqaana malihi kuma dheereeyo waxa badan ku soconayaan networking bay ku sahlaysaa intaas oo dhan waxa ka sii muhiimsan mid aan sheegay oo ah unity-ga oo ah level walba mataqaana gudihii iyo ilaa iyo Soomaali weyn hadalka waxaan maleeyaa inaan wax kala tagi doono waayo hadalku balaaran yahay fikradu sexo bilaabatay waxaan maleeyaa waan xusay wixii ka soo baxay waan xusay waxa laga faa'iideeyay waan xusay hadda xagee maraysan baa laga yaabaa in la isweydiiyo hadda waxaan maraynaa horta waxaan jirnaa bil iyo waxaan maranayaa 2 cisho ma jirnaa hadda bil iyo 2 cisho structure-kii gudaha ilaa waxun baa lagu soo heshiiyay waana noo soo dhiibay inaanu wixii lagu soo heshiiyay aanu u bedelno wax la taaban karo oo ururkii registration-kiisii iyo mataqaana website-kiisii Facebook-giisa maxaan ku yiraahdaa constitution-kiisii waxyaalahaas baanu ku mashquulsanayn hadda way noo soo gabagaboobeen baan dhihi karaa 90%
hadda wixii ka dambeeya waxaanu u tilaabsanaynaa tilaabadii xigtay su-aasha kaloo la isweydiin kara waxa weeye ururada aan ku qancin maalan wax kastoo aad sheegtaan aan dantooda ka dhex arag maxaa ayagu see baad ula dhaqmaysaan siyaasaddeedu waxa weeye sideedaba waxa weeye ururka markaa adigu aad leedahay ama mas-uul ka tahay mas-uuliyaddiisu aday ku saaran tahay eeg ha ku degdegin daris waxa ay tahay su-aal haddaad qabto oo maalan ama hadalkaygaan ama kuwo kaloo meel aan ku mataqaanaa ka sheegnay ama website-kayga information ku jira uusan ka wada jawaabin su-aalahaaga still waadna weydiin kartaa website-kaygu wuu shaqaynaya emailkan wuu shaqaynaya waad noo soo diri kartaa telefoonadaydu way ku qoran yihin website-kayga waadna soo wici kartaa haddii intaasoo dhan aadan ka arag wax mataqaanaa ku soo jiita mataqaanaa haba soo gelinba ururkaaga banaanka kuu joogo mataqaanaa still asagoo banaanka kuu jooga wixii aanu kula qaban karna waanu kula qabanayna adiguna waxaan kaaga baahano si respect baan ku weydiisanayna ama aan ka hadla ama aanu kaa weyne wax shidaahoo meeshaas ka taagan ma jiraan waxaan xasuustaa shirkii Finland janagala ma qaan qaarkiin uu yaqaan la yiraahdo oo horta waxa ka jirta Finland aan kugu dare Finland wadamada waxay kamid tahay loo isticmaali karo success story waxa ka jirta saan kulli aan ogahay waa wadanka kaliya oo ay ka jirto dallad ururada reer Puntland ay ku midaysan yihiin dallad baa ka jirta 12 urur ay ku midaysan yihiin waana dallada ugu wax qabadka badan anigu intaan ogahay ururada Yurub ka jira oo dhan ilaa iyo haddana arrintan waxay ku lahayaan qayb weyn waxaan xasuustaa xubin ka socotay nin la yiraahdo Janagale ama Cabdisax Janagale oo asagu aan dhihi karo runtii waa khabiir markii arrimahan laga hadlayo ama Soomaaliya oo dhan oo ah ama reer Puntland asad oo ah uu sharxayay waxaan leeyahay waxyaalo waxay u kala taliyay haddii shirkii dadka yimid waxa laga yaabaa qof walba inuusan filaynin inuu inta dallad ka soo baxdo oo xubin ka noqdo qofkii arrintu ay kadis ku tahay shida ma lahan waad dhageysatay waad haystaa macluumaadkii kula laawo saaxiibadaadii kale ya go'aanka hadda inaad gaadho aad gasho shardi ma aha ficlan qaar ka mid ah 17 urur ka soo qayb galay qaarkood sidii bay qaateen kama soo qayb galin ilaa iyo hadda xubin kama ahan urur ka mid ah ururadii wuxuu yiri waxaan kula laabanayaa tiimkaygii mataqaanaa waxaan la wadaagayaa tashiga waa sida loo baahan yahay sidaas waayo waxa waa inaad ogtahay aad galaysid mataqaanaa ma ahan wax mataqaanaa iska orada marka waxaan leeyahay hadalku waan ku raftay laakiin waxaan is leeyahay aad ka jawaabtid su'aalaha dadku isweydiin karo oo ku saabsan Biden wixii ku saabsan baan is leeyahay aad ka jawaabtid marka hadafkayagu marka waxaan ku darayaa marka waxaan damacsannahay laba qaybood weeye si guud midda koobaad waxa weeye annagu inaan isno waxa laga yaabaa inuusan waxaan arrinta u leeyahay inaan ciduna ka filin naga filin had yartaan inaanu mataqaanaa ama la arko annagoo mataqaanaa dad badan caawinayna ama mataqaanaa dalkii wax geynay ama mataqaanaa iskuulo furnay ama iyo wax la mid ah maya hadda marka ugu horeysa waxa weeye ururada horta xubnaha ka ah inaanu tayeyno aanu istayeyno dhinac walba wada shaqayntayada aanu isbarano tilaabada labaad taa markaan ku guuleysano tilaabada labaad bay noqonaysaa inaanu gudihii wax ka caawino ama waxyaalaha kale way jiraysaa dabcan urur waxa jira hadeertaanba qaarkiin aad ka warqabtiin laga yaabo inaad xubno ka tihiin hadeertaanba waxyaalo wax qabad ama مثلا humanitarian mataqaanaa assistance dalkii geeya ama iskuulo gacanta ku haya ama boarding ama mataqaanaa orphane de sidii u jiraysaa mataqaanaa ayaan gudoomiye ku-xigeenka kaliya ma aha waa gudoomiye ku-xigeenka iyo mataqaanaa isku duwaha arrimaha bini aadanimada weeye sidii bay u jirayaan laakiin hadda dhowr gabdhood oo soo socda isdhis gudaha un baan ku jiraynaa bismillahi raxmaani raxiim walaal maadaama aad madax ka tahay ururka iqra shaakir sideed u aragtaan inaad ku soo beerteen ururka dalladda Puntland ee dalka Yurub waxa u arkaa inaan hore u soconayno ururkeena oo sii weynaanayo oo wadanka banaanka soo bixi doona xataa hadda ururkay wuxuu ka tirsan yahay
England and Welsh and Somali uu ka jira meel kalena waxaan u maleynaynaa ka gudbeyno waxyaabo badan oo waxa isdhaa inaan hor u soconayno oo si adkaanayo helena networking badan السلام عليكم waxaan caawa isugu nimid xaflad ururada qurba joogta Puntland marka anaga qaybta aan Birmingham insha Allah aad baan ugu soo dhaweynay walaalkeen Maxamed Cabdulla Faarax Qordheer iyo dadkii la socday oo shirkii xagga Finland ku qaban qaabiyay halkan aad baan u maqsuudnay markuu nooga sheekeeyay waxyaalaha uu qaban doono future-ka ilaahay ha ka dhigo mid ku guuleysta ilaahay ha ka dhigo mid xaqa iyo cadaaladda ku hogaamiya aad iyo aad baan ugu qanacnay waana ku faraxsanahay waana taageersanahay mar walban waa taageerina mar walban waa u taaganahay insha Allah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعي وفاطمة أحمد علي فاطمة جرمل waxaan ka soo qayb galay xafladan mideynta ururada aad ayaan ugu faraxsanahay waana wax wanaagsan Soomaalida day sidaan oo kale wada sameeyaan kulligoodna horumar ay gaarayaan marka xafladan waan ku faraxsanahay ururada isku biiray kuwa kale inay saan oo kale sameeyaan aan jeclahay reer Birmingham aan ahay waa idin wada salaamaya ururka Soomaaliyeed magaalada Birmingham dadka xafladda soo abaabul kulligiin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم مقعيق وزهر دول وحان كايميد أوركا حاوتاك فاميلي أسوسيشن oo aanu kula midownay daladan caawa halkan baydan ururka baydan aad iyo aad baan runtii ugu faraxnay waana wax loo baahan yahay midnimada ay gaareen ururadaas Puntland marka runtii aad baan ugu faraxnay insha Allahna waan la midoobi doonaa halkanna waxaan ku baranay gudoomiyaha daladaas oo lagu doortay Finland waxaan u aragnaa aragti wanaagsan wax kasto wanaagsanna waxa fiican in la taageero la garab istaago si qofkii wax qabanayay uu u dhiiranaado oo dalkii dadkan wax ugu qabto aad baan ugu faraxsanahay jaaliyada Puntland caawa halkan nagu soo casuuntay anigu waxaan ahay gudoomiyaha ururka guud ee haweenka ee haddana jaaliyada Jubbaland waan ku faraxsanahay magacaygu waa Luul Maxamed Axmed waxaan ahay ururka hooyooyinka Birmingham ee mataqaana Puntland waxaan ahay qabanqaabiyihii xafladan waxaan nahay mataqaana jaaliyadii Birmingham ee mataqaana isku dubaridaysay waxaan soo dhaweynaynaa ururkan dalada Europe ee mataqaana isku midowda ee mataqaana ee Puntland aad baan ugu faraxsanahay waxaan rajaynaynaa mataqaana inay hor u wadaan shaqada oo mataqaana laga daalin caqabado badan baa jira caqabadahaas weyn laga gudbo waa in dadku mataqaana horumarka iyo wax qabadka ay fiiriyaan qofka wax qaban kara mataqaana loo sii daayo kii mataqaana wax qaban karana hore loo sii wado jaaliyada kale oo mataqaana sidaas u dhashayna waa rajaynaynaa in mataqaana ay fikradaha la kala qaato fikradu waa wax fiican ma aha wax la isku caayo fikradu waxa weeye horumar bay leedahay wanaag wuxuu leeyahay horusocod buu leeyahay marka waxaan rajaynaynaa qof kasta oo xoog leh ama ciidan haya ama mataqaana haya ra'yi haya inuu mataqaana wuxuu hayo uu banaanka keeno la xishoonin mataqaana gabdhaha Birmingham ee jaaliyada Puntland iyo jaaliyadaha kale dhan waxaan rajaynaynaa iyaguna mataqaana horumarkaas iyo ka wanaagsan inuu mataqaana ay isku guubaabiyaan saas rajaynaynaa insha Allah gudoomiyaha waa mataqaana mahad celinaynaa gacmo furan buu dadku soo dhaweynayaa annaguna mataqaana intaas aan la sii wadaynaa insha Allah salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh barnaamijkan oo ahaa mid lagu soo dhaweynayay gudoomiyaha jaaliyada qurba joogta Puntland ee Yurub Maxamed Cabdulle oo lagu soo dhaweeyay magaalada Birmingham ee caasimadda labaad ee wadanka UK intaas lagu soo gabagabeeyay daawadayaal intaas waxaa ku dhan barnaamijka gaarka ahaa oo telefishinka Puntland ee London uu idiin soo gudbinayay oo ku saabsanaa xaflad loo qabtay madaxda dalada ururada qurba joogta Puntland ee Europe oo lagu soo dhaweynayay magaalada Birmingham intaynu barnaamijkan lamida dib ugu kulmi doono waa bahda Puntland TV oo isku duuban oo idin leh nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh